sharikadda Turkishka ah ee agabka ciidanka samaysa ee la yiraahdo FNSS Defense Systems ayaa gawarida gaashaaman ee Baris 3 8x8 iyo Baris 3 6x6 u daabushay ciidanka lugta ee dalka Cumaan, taasoo qayb ka ah qandaraas la kala saxiixday 20kii bishii Sebtembar 2015. halka toddobaadkii hore ilaa iyo 172 gaari oo kuwa gaashaaman ah la gaarsiiyey saldalada Cumaan. shirkadda FNSS oo hubka dhoofisa ayaa ilaa iyo haatan 172 gaari oo kuwa gaashaaman oo 13 nooc isugu jira u daabushay dalka Cumaan. noocyada Baris ee Cumaan la gaarsiiyey ayaa isugu jira gawaarida uu tooreedkoodu yahay 25-mm iyo 30-mm iyo 12.7mm oo ah kuwa rimuudka lagu hago oo qaadi kara madfac dhan 120mm. sidoo kale gawaarida ambalaasta, kuwa talisku isticmaalo, kuwa raadaarka qaada, kuwa sirdoonka, kuwa ciidanka uga diga halista kiimikada biolojiga iyo nuclearka ee la yiraahdo CBRN, iyo kuwa dayactirka iyo cilad bixinta. gawaaridan Baris oo ah 6x6 kuwa miinada u adkaysta waxaa sidoo kale lagu qalabaynayaa ciidamada Turkiga marka la gaaro 2021, iyadoo ay shirkaddan FNSS ay $374 milyan oo dollar ay 2019 ka heshay dalal ay ka iibisay hub kala duwan oo iyagu soo codsaday ilaa iyo 4,000 oo gawaarida dagaalka ah. waxaa soo baxaya warar sheegaya in Turkigu uu xoojinayo oo uu arrintaasi horumar weyn ka gaaray inuu saldhig ciidan ka samaysanayo saldanadda Cumaan. taas haddii ay rumowdo, Turkigu waxay ka dhigaysaa quwad saamayn weyn ku leh badda cas, gacanka cadmeed iyo badweynta Hindiya, isla markaana door weyn ku yeelan kara dagaalka ay Yemen ay ka hurinayaan Sacuudiga iyo Imaaraadku. warkan ayaa soo cusboonaaday oo ay wargeyso badan wax ka qoreen kadib markii Turkigu uu toddobaadkii hore hub badan u daabulay saldanadda Cumaan. arrinta xiisaha badan waxay tahay haddii uu Turkigu saldhig ka helo Cumaan, waxay dharbaaxay istiraatiijiga ku noqonaysaa Imaaraadka, waayo Cumaan waxa ay ka talisaa jasiirad oo ka la yiraahdo Muzandam oo ah goosin dhul ah oo Cumaan ka tirsan balse ku dhex yaalla Imaaraadka, waliba taas oo muhiim ah oo waliba istiraatiiji ah. marka taa lagu daro inuu Turkigu hore u sii joogay Qatar oo jihada ka xigta Imaaraadka oo sidaas ku hareeraysan. intaan dib u kulmayno waa Cabdirasaaq Jubbo idin leh sidaas nabadgelyo.